waxaan joognaa tiyaatarka qaranka ummadda Soomaaliyeed oo naftii aragta indhuhuna ku doogsanaya qalbiguna ku farxayo waxaan leeyahay intii ku tacabtay tacabkii naareed Allah ka hayo tiyaatarkeena qarankee tixii iyo ciyaaraha muddo laga dhex tuumi jiray tifmay dawladnimadii madaxdii ku tacabtee isxilqaan ku taagee tabtiisii ku celiyo rabbi baanu tuugnay jeer qaranku taagsado taliyo tegnina tiyaatarka qaranka waxaa la dhagax dhigay 23 Oktoobar 2018 wuxuu marayaa sanad iyo bilo badan oo labadii sano wax yar ka dhiman waxaa laga qabtay howl badan waxaa loo qabtay 4 system oo ah kii dhismaha guud ee tiyaatarka oo ah kii qalabeyntii gudaha tiyaatarka oo ah kii xagga korontada iyo technicianka u baahnaa ee gudaha awal ku sameysnaa haday noqoto isha korontadii mareysay aqalada dhexdooda oo in la goobo ay howl badan noqoto maadaama ay injineerishiinaysa dhiseen waqti horena la dhisay si adagna loo dhisay alxamdulillah ilaahay uu nagu gooleeyay maanta waxay maraysaa heer gabagaba ah alxamdulillah aad soo aragteen daahiyadii oo laalaaday nalalkii oo shidan systemyadii oo wada shaqeynaayo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha fahanto xoogeeda oo la isu geeyo inuu wax tarayo haddii xoolaha iyo xoogga la isku darana kama sii fiican waxaa leeyahay baraaruga oo dalka dhisa oo dadka dhisa oo dadka xaggee laga dhisaa maskaxda in dal la dhiso aan dal la dhisin waa wixii soo ku dhacay way dumaysaa laakiin madaxda iyo hantiilayaasha iyo ummadda Soomaaliyeed baan ka codsanayaa in la dhiso maskaxda bulshada in lagu dhiso cilmi mid oora loogu sheego iyo mid qalin loogu dhigo tiyaatarka qaranka mar dhow la xarig jari doonaa waxaan mahad iyo hambalyo u celinaynaa dadkii Soomaaliyeed ee ka geystay inay nala dhisaan ay hawshaas nala galaan isxilqaanimo oo ay ugu horeeyaan ganacsatada Soomaaliyeed uma baahanin alaab haddaan u baahanana ma waayin ayadoo ganacsato nala joogto markaan dalbano waxa noo keeni jiray ilaa saakay 4 saac maktabada qalab u soo wado waa ganacsato Soomaaliyeed waxaan ku tartami jiray halkan 26 wasaaradood xafiiska madaxweynaha xafiiska prime ministerka iyo hay'adaha institutionada kale madaxa bannaan sida xisaabiyaha guud qaranka iyo hanti dhawrka guud iyo maxaan ku raadayay gudiyada qaranka gudiga dib u heshiisiinta gudiga dastuurka gudiyada qaranka marka la isku daro waxay noqdeen 34 hay'adood ayaa halkan ku tartamaysay oo maaragtay maalinba mid ay soo galeysay waxaana la dhisay wasaaradda howlaha guud oo injineeradeeda aan habeen iyo maalin harsan oo arkaysiin hadda inay joogaan 3 injineer iyo injineerkoodu weena injineer Shirwac oo hawshaas joogto noolahay haddaan wax yar dib ugu noqdo barnaamijka oo runtii dib u dhiska tiyaatarkan lama dhihi karo dayactir tiyaatarkan waxa weeye oo structure-kiisii muxuu ahaa dhammaan muxuu ahaa qaybihiisa kala duwan oo dhan dib u dhis baa lagu sameeyay weyn mashruuc maaragtay runtii bilow oo kale ah ayuu ahaa barnaamijyadiisii hore oo dhan waxbaa laga bedelay qaybo cusub oo aad iyo aad fara badan baa lagu soo kordhiyey quality oo runtii uusan hore u lahayn aad iyo aad fara badan ayaa maaragtay ayaa lagu soo kordhiyey muxuu ahaa runtii waa laga dadaalay aad iyo aad baa farsamadiisa loogu soo dadaalay intii ka qayb qaadatana waa u mahad celinaynaa waxa aan u sheegaynaa oo bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed baan u sheegaynaa inuu mashruucaasi guriga tiyaatarka u dhamaaday berri wixii ka dambeeyana almost aan gacanta kala baxayno oo markaas in la furo oo maaragtay oo ummadda u shaqeeyo marka aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa runtii waa lagu soo daalay waa lagu soo kifaaxay waa lagu soo dadaalay habeenimo maalba waa la taagnaa si hagar la'aan shaqo oo runtii maaragtay laga naxay oo lex jecel loo qabtay ayay ahayd wasaaradii ka qayb galay oo dhan iyo dadkii ka qayb galay iyo bulshadii ka qayb gashay oo dhan waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinayaa runtii madaxda qaranka Soomaaliyeed oo runtii barnaamijkan alifdiisa iyo hindisihiisa iyo maaragtay dhiirigelintiisa iska lahaa intaas kadib waxaan u hambalyeynaya oo leeyahay waad mahadsantihiin shaqaalaha dowladda Soomaaliya oo ayagana aad kaalimahooda geli jiray tookeysan jiray wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay soo habeey jirtay ajanda in jadwalka ay ku soo shaqo tagayaan
waxaa kaloo nala joogay oo nala dhisay bulshada rayidka oo naga maqneen, waxaa kaloo nala dhisay Soomaali dil iyo dibad inta jirto. waxaan salaamayaa una ducaynayaa madaxdii ku talisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka, shakhsiyaadkii agaasimayaashii labada sano qoraxda u taagnaa dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay tacabkiina ha ka dhigo kii ilaahay tayo u yeelo adduunkana magac idiin reeba aakhirana aad ku janno tagtaan. ilaahay waxaan ka baryaa inaad wax wanaagsan mooye wax unaydnaan weligiin ka shaqayn. ilaahay ha idin hagaajiyo, annagana hana hagaajiyo. waxaan leenahay waad mahadsantihiin, waddanka inta aad joogtiin uu guuleysana waynu guuleysan doonaa, ilaahayna ha idin dhaafo. ummadda Soomaaliyeed waa hoy u dhismay, waa hoygii dhaqanka, waa hoygii lagu soo bandhigayay dhaqanka. dhaqanka waxaa u weyn suugaanta, cayaaraha, farshaxanka, intaasuba isaga gudihiisa bay ka tirmaan oo ka soo baxaan. waxa ugu weyn luqadda Soomaaliga waa meesha la keeno dhuuxa ereyga Soomaaliga ah, dhulka ereyga waa meesha lagu faafiyo. ummad aan lahayn caalimka oo dhan muslim iyo gaal waxaa laga eegaa tiyaatarka dhaqankooda. tiyaatarkani sida uu maareeyay hore u sheegay waxay ahayd meesha bulshada Soomaaliyeed lagu wacyigelin jiray, hadday noqon lahayd dhanka wadaniyadda, hadday noqon lahayd dhanka riwaayadaha jacaylka ah oo bulshada isjecel, ilaan ummaddu jacayl kama maaranto, diinteena dhigaysa. marka dhan kasta oo bulshada maskaxda loogu wacyigeliyo oo wax wanaagsan lagu wacyigeliyo ayaa halkan maskaxda loogu safayn jiray. ayaa dhisiisan ilaa 2011 ku dhamaaday. siyaasiga waxaa loo dhisay in laga daawado ummadda Soomaaliyeed dhaqankeeda, dhaqaalaheeda, siyaasadeeda, shacbigeeda Soomaaliya in laga daawado ayaa siyaasiga loo dhisay oo suugaan ahaan iyo cayaar ahaan loo gudbiyo caalamka lagu daawado. waa lagu bartay oo Soomaalida markii bartay ka caanku waqtigiisa halkii sano ku horreeyay caalamka oo dhan Soomaali waa yaqaan. siyaasadkaanu wuxuu bartay siyaasadda adduunka oo dhan ayuu ku soo waday, halkaas biladaa oo la jiray caalamka lagu siisay. asalkiisiba siyaasadku waxa weeye golaha dhaqanka iyo ummadda muraayadda laga daawado. waxaa loo sameeyey shacbi Soomaaliyeed oo nadiif oo wadani ayaa jirta. waxaan xasuustaa isaga oo 120 fanaan masraxa saaran tahay oo ay tahay xafladii dowladda. waxaan xusuustaa iyadoo madaxweyne yimi kii ugu dambeeyay xaflad loo sameeyaa waa Xusni Mubaarak oo luqadiisa loogu heesayo boqolaal qof. waxaan xusuustaa iyadoo lagu cayaarayo dhaqankii wala soqo iyo dhaanto iyo jaandheer iyo kabeebe iyo haddii la waa ku roya beerey iyo mogtahay ciyaarihii kala duwanaa. waxaan xusuustaa annagoo ka dhigaynay ruwaaddii if iyo aakhiro taydii qalanjo qaybsan weyde. waxaan de wax badan baa xusuustaaye alxamdulilah rabbilcaalamiin. ilaahay wixii oo ka sii fiican ha noo soo celiyo, ilaahay ha noo soo celiyo. waxaan laysku durayn, waxaan laysku duqaynayn, waxaan laysku maagayn oo ummadda horumarkeeda in saldhig ilaahay ha uga dhigo. wuxuu kobciyaa oo soo saaraa bar kastaba ilaa 500 oo qof ka shaqeeya, maanta 124 iyo 4 qof. wuxuu lahaan jiray 50 nin oo musishin oo mid walba qalabkoodii qolo walba leeyahay qalabkoodii diyaar oo qarbaxayaan, qaar joogayaan, qaar tumayaan, kuwaad wareejinayaan. maanta waa eber wiilal 200 qof oo xilsaawo u baahan
intaas ciyaartooyga boqol u baahan yahay aniga magacayga waa cadar xagdamuur baa la yidhaahdaa cadar faan baa ku magac dheer markaan tiyaatarkan kusoo biilaayay siduu maalayowba sheegay dabcan adiga iyo timijo meelahaas ayaa gruub waxaan ahayn 20 ciyaartooy bartay wax heesaa bartay wax muusikaysta bartay wax abwaanimo maantayto maalintaas waxaa naloo carbinaayey oo wax naloo baraayey ya dhaqankii iyo hiddihii ya aan lahayn oo Soomaaliyeed oo quruxda badnaa muraadan in laga daawado ayay ahayd nasiib darro waxaa noqonay ciigii waa ka bariyey amba saabuusi laga eedaamo markee ilaa taariikhda hadda aan joogno wixii u dhaxeeyey waxay ahayn burbur Soomaaliyeed tiyaatarkii waa arkaysay siduu ahaa annagii waana arkaysaan sidaan nahay ya hadda iyo kow dhaqankii Soomaalida in dib loo yegleelo muuqii wanaagsana in dib loo yegleelo dhaqankii in dib loo yegleelo fanka iyo suugaantu waxaa weeye culture-kii Soomaalida dhaqankii Soomaalida quruxdii Soomaalida diinta kaabigeeda weeye waxa wanaagsani hiddii weeye iyo dhaqankii marka hiddii iyo dhaqanka waxa wanaagsani asluubtaana waxay kulaalayaan diinta kulaalayaan qofkii waxa wanaagsan haya lagama waayi maayo dawaaba waxa wanaagsan ka wixii wanaagsana in xaqii ilaahiyada u bayray oo ku jirana yani lagama weynayo laakiin in dhaqanimada laga barto ma aha tiyaatar wax dhaqanka laga barto weeye wax quruxda laga barto weeye wax hiddaha laga barto weeye ma aha wax dhaqanimada laga barto marka waxaan leenahay muraayadii mar labaad alla isku daawado halkan wixii dowlad wanaagga ah iyo waxa bulshada u wanaagsan wixii dhibaato ku ah ayaga horumarkooda ayaa halkan loogu wacyigelin jirin marka tiyaatarka lama safayn karo waxyaabaha dalka uu qaban jiray nasiib wanaag maanta sidiisuba ku soo noqday intii iscilqaam ku dhistayna taariikhday magac ku leedahay oo wax walba taariikhdaa xusta dowladda maanta jirta iscilqaamka ku dhistay taariikhda unbaa xusi doonta waxaan mar labaad mar saddexaad isugu hambaleynaynaa tiyaatarka inuu gabagaba yahay oo maanta uu dhammaad yahay ama berri dhammaad yahay madaxda dalku ay furi doonaan maalintaasna ay tahay maalin farxadeed oo maarata maalin aan damaashaadi doono laguna horumarin doono suugaanta iyo luqadda afka Soomaaliga bulshada Soomaaliyeedna ay goobo badan oo ay lacag ku bixi jireen ay uga daawoobi doonaan oo hoteelada la kireysan jiray looga reesan doono oo shirarka ugu waaweyn ugu qabsan doono oo kuraasta ku xiran ay ku filan tahay